sunni waxaynu ka siinahay shaafici waxaan ka codsanayaa guddida inay intaas ku soo daraan haddii la yiraahdo qodobka kale waa kii haweenka qodobka saddexaad faqradiisa shanaad waaba xusteen oo maxaa la yiraahdaa waxay ka mid noqonayaan hay'adaha dawladda in aad intaa yarna ku soo calaamadaysaan waan ka codsanaynaa oo boqolkiiba 30 ah marka Soomaalidu waxay tiraahdaa ma gabay baa wuxuu ahaa mintid farayar midhii bataa kama macaashaane dumarku maanta waana isku duuban yihiin waana intaan waxaan u maleynayaa wax weeyaan meel ay ka gorgortamayaan malaha raggeena Soomaaliyeed barlamaanka nagula jira waxaan ka codsanaynaa inay intaas iyaguna codkooda ku kaalmeeyaan hablaha waxaanu mas'uul ka nahay oo mataleynaa hablaha Soomaaliyeed dhammaantood marka guddidu inay intaas ku soo darto iyagoo way xuseen oo si fiican bay u xuseen laakiin in ay hay'adaha dawladda boqolkiiba 30 meel walba ay ka ahaadaan ilaahay idamkiisa habluhu way ka wanaagsan yihiin maxaa la yiraahdaa waxaan oran karaa way ka degan yihiin oo ka wanaagsan yihiin oo ka amni maxaa la yiraahdaa meesha hadii habluhu ku badan yihiin dumarku meesha ay hay'adaha ay ku badan yihiin waa dareemi kartaa oo way ka maxaa la yiraahdaa way ka wanaagsan tahay meel waliba meesha ka dumarkoodu ay kaga jiraan xubnaha dawladda marka waxaan leeyahay kuwa la magacaabo iyo kuwa la doorto iyo maxaan idhaahdaa dawladaha hoose iyo meel walba inay dumarku 1 iyo 2 iyo 3 ka ahaadaan boqolkiiba 30 ugu yaraan intaasaan ku soo celcelinaynaa gabagii ahaa mintid farayar midhii bataa kama macaashaan kelmadii ahayd dumarku maxaa la yiraahdaa isma doortaana maanta waanu bedelnay ilaahay idamkiisa aad baan idin salaamayaa mahadsanid senator